Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ma isku aragtay madax xanuun laga dareemo foolka wejiga iyo indhaha gadaashood oo laga soo cadaadinayo, kaasoo kuugu daran markaa foorarsatid ama sujuudid adigoo dareemayo inuu wejiga kusoo dhici rabo, sidoo kale sankoo ku caburo, afkoo ka neefsatid, iyo dareenka wax urinta oo isbedela, lafta ku taalla sanka dhinaciisa iyo indhaha korkooda oo ku danqata markaa riixdid, xaaka joogta ah iyo duf cagaaran oo ur badan, caajis, murqo xanuun iyo qandho ma dareentaa markuu xanuunka aad kuu hayo. Xanuunkan ma kuugu daran yahay xilliga hergabka kugu dhaco? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socdaa ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Ciladan waxaa loo yaqaanaa sinusitis, taasoo ah caabuq ku dhaca daldaloolada lafaha sanqada ku jira. Sida caadiga ah, dulduleelada ama jeebabka sanqada waxaa ku jiro hawo, laakiin markuu infekshan qaado waxaa ku aruuri karo dheecaan ay keento bakteeriyo ama virus. Xanuunada keen in caabuq galo sanqada waxaa ka mid ah hergabka, sanboorka, cilada sanka hilibka, ama carjawda sanka oo qalloocato. Xanuunkan waxaa loo kala qaybiyaa 3 qayb, waxa ayna ku kala duwan yihiin kaliya muddada uu xanuunka ku hayay. Midda koowaad waa mid si degdeg ah qofku u qabto, wuxuu ku bilowdaa hergab, hindhiso, sandurdur iyo xanuun wejiga ah, wuxuuna qofku hayaa in ka yar muddo bil ah. Kan labaad wuxuu qofku hayaa 1 bil ilaa 2 bil gudahood. Midka saddexaad qofku wuu kusoo noqnoqdaa, wuxuuna hayaa muddo sanad ama ka badan. Xanuunkan waxaa lagu ogaadaa wareysi, weesiteen, shaybaar iyo raajo ama iskaan la saaro sanqada si loo fiiriyo inay wasakh fadhiso iyo in kale. Dhakhtarku wuxuu adeegsan karaa tubo afka hore ku leh kaamiro si loogu eego in meel xanniban ay jirto iyo cilladaha kale oo aan si toos ah indhaha loogu arki karin. Sidee loo daaweeyaa? Markuu caabuqa sanqada uu cusub yahay, waxaa lagu qori doonaa qallajiye iyo xanuun baabi'iye, sidoo kale daawo caburka hindhisada yareyso. Waxaa daawada la qaataa 2 usbuuc ugu badnaan. Hadduu xanuunkaagu uu yahay mid raagay, waxaad u baahan tahay in wasakhda ku jirta sanqada la soo saaro, sida inaad isku uumisid biyo qandac ah si ay u soo jilcaan oo aad u soo diibsatid, in wejiga saarsaartid wax qandac ah, sidoo kale in sanka lagaaga dhibciyo biyo cusbo leh ama lagu qoro goojooyin ama wax lagu buufiyo sanka oo daawo ah. Haddii intaa wax tar weyso, waxaad u baahan tahay qalliin ama qalab lagu soo nuugo wasakhda ku xanniban sanqada. Fadlan isbitaalka imow lana tasha dhakhtarka ENT-ga si xal loogu helo ciladaada. Xanuunkan haddii aan la daaweynin wuu sii fidi karaa oo wuxuu gaari karaa heer maskaxda u gudbo, wuxuuna keenaa xanuunka loo yaqaano meningitis oo ah qoorgooyaha. Halkaas ayaan kaga baxayaa casharkan. Wixii su'aalaha noogu soo gudbi qaybta comments-ka ee muuqaalkan. Waana mahadsantahay.